إلهي يرتعذر كنا هنجي عليه سبحانه وتعالى dadkan waxaan leenahay hala qaato magaranaysaa talooyinka hala qaato ay soo saaraan gudidu iyo dhaqaatiirta hala qaato hubkan aad sheegteen in Katilaan Masar baa bixisay oo Soomaaliya siisay horta koonada Soomaaliya iska joojiya Soomaaliya ma jirto koox bay siisay hadda hubkaas siisay koox bay siisay waxaana iyagu isku diliya gacanta wax u gelisaa uun amba koox amba reer ويقولوا إنك فرماجو إذا ما قارة الصوعة وريال قارة أي قدرتي ما كان سمع شيء له إريتريا مصطفى باريسا قاربا صون نقضي ما له توحى قالين ما حفظوا وذي تشربي قالين هذا ستين قارو حولي ما كان ساعي دي قبل كجدو وأنا أقانص جدلو سميه سلوك الدقيقة لكن دي حقوق ولا كوقايست كوب محمد سياد براه وكشاكتي وحكلا دغالميا ما كان ساي مامول كا ما كان ساي جوبلاند لبحي ايو كلا دغالميا قال مدو aragto ciidamo keenay kula dagaalamaya gaalkacay agteeda waxa la teeskuleeyeen ciidamada saacadka isku leeyeen waxaas waxa weeye uun fidmo dhaxdooda ah iyada waxa ay culays u saaraysaa dadka reer Muqdisho dal xukuumada lacagta laga qaado bariyo tamiyale farmaajo wadooyinka naafar warjaa farmaajo hebel laga bedel in kale kooylatin bari la joogay oo shan madaxweyne kala sameysteen reerba meel qabsaday iyagu ba isku maqnaanaya aan ka xunnahay inaga laakiin wax warweyn ka qabana ma jirto waxaanu dadka Soomaali ahaan baan leenahay dadka Soomaaliya dusha laga fuuray xamar wiba u badan caruurtooda la afduubay Eritrea la geeyay hooyinka ooyaan caruurtooda xagee la geeyay inta la gadar baa la geenayo lacag bay soo shubayaan ayaa Eritrea la geeyay hooyinkoodii ka ooyay waa dadka banaadir ilaahay saa ka dhigay ilaahay saa ka dhigay ya ilaahay saa ka dhigay subhanahu wa ta'ala haddana marka aragtid idaacadahooda iyo social media hooda Soomaaliya hadda ila shimbir ba ku dhimatay ayaa farx ya Soomaaliya war waxaan carrier shirkad mid wala hada kulmiya la ilaayo war abadoon baatay baan ku yeelay inta leedahay hubkaas muxuu yeelay hadu wax ku yaano muxuu yeelay baan ku yeelay anu farmaajo adeerkii ku xogay ma ka adkaaday reer ahaan naga ma adkaada anaga qaran naga ma adkaaday jabana naga ma adkaado never in history lana ma jirin marka Soomaaliland ma ahayn anaga ma jibiyo war anaga war xaga baqaan xaga keentan halkaas aan ku dhalanay mayd ilaa kan degana way ogtiin geed aan ku dhiman ma jirto ya anagu dadka ma dandan say wax iska celina anaga baqina wasiirka kashandigi wuxuu sheegay in mandaqada ay xaaladeeda amaan wax yeelayso ka tirada badan ee Masar Soomaaliya ka qabsatay in arintaasi wax bay yeelaysaa hubka wax laga yaabaa in Itoobiya xitaa lagu la dagaalamo nimankan meel kasta way faray galeen waa qalqaal oo ciyaar qalqaaliya waxay u footeen bari weeytay Itoobiya عندنا waxay hub ka qaadanaya Masar marka waxoodu waa waxaan aqoon lahayn iyo leadership jahayno birqdaaya laakiin dawrintooda ka qodadiisa Itoobiya hubkaasi waa laga yaabaa xitaa in la doonayo jabhad lagu kiciyo Itoobiya in loo soo mariyo yani ma jirto dawlad Soomaaliyeed in loo soo mariyo kofar ay tahayna waa laga yaabaa ninkii dhunukan jiray ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhunukan farmaajo waxa ka gorokaas kan Soomaaliya la siiyay waxay ka fogeynaysaa xiriirkii waxaas Itoobiya iyo Soomaaliya dowladda maadaama kala dhaxeeyo Masar iyo Itoobiya marka hore wax suurtagal ma ahayn isku dhaweyshaasi inta sarcad baa Itoobiya iyo Soomaaliya waxay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen meesha weeyaan moogta Soomaaliya ma jirto wuxuu la heshiiyay qabiilka yar meesha in ka yar farmaajo la heshiinaya ya Soomaaliya badda saa xukuma reersiga inaga leh marka hore waa waxay fudeed bahayd in isdhunu kada waa tabti Maxamed Saad Barade sameeyay min kistabu si SNM talo soo saaro oo ogaadeen u fasaxay oo saxay marka waa amalkii adeerkii buu wataa laakiin uu ku jabay asoo 7 bilood buu harsanay 7 bilood ka bacdi halku farmaajo joogo
ayaynu ka sheekaysan doonaa insha allahu tacaala afweyne waa ka baxuu ka nabad gale waxaan filaya isagu in xinjirtiisa taalo gudoomiye midda kale xagga Puntland haddaan aadno khilaafka weli ka dhex taagan madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii maxaa fariin u diraysaa qolada Puntland te muxuu ku darsaday Axmed Karash muxuu ku darsaday majeerteeniya waxay la taxmad jiray marka hore waa qaadi Axmed Karash ma intuu Soomaaliya sana qaado oo isaaq ka saaro وإذا دول بهان تالو كدر كلام مشرتين يا بنت اللي سكوا شاكيني دولة قرولوجت أبصار تمكها يعود ليه بوها ليه يكون عليه يعني مركورة واحد بنت لويشيا واحد بين لويشيا ما صعنيس أحمد كرشين أنو دول بهانته وسومال هذا أو إنه قلنا ما كنا كان دول بهانتين ده شو جرد بيننا جرد يجون الحين ور ويلك دول بهانتين يا ويلك we don't respect marka muxuu ku darsaday waa iska soo erig sidii dhooba aad u gashay daaradowga waliba saa kurta ka jar oo saa qab weeye ya muxuu lacag baa la siiyay wasiiraa la siiyay guri baa la siiyay madaxweynaha la doortay oo saa power kale systemkooda waa madaxweyne kaygan wuxuu ku haystaa hal wuxuu ku haystaa ma jiro anaga halkan baasha qaad ka joogno on tageen meesha la yiraahdo meesha laascaanood aan lagu soo dhaweynin on tageen kala bayrka ayaa hadda doorashadii saa u haysta dawuu inaga fariisan yahay daani inaga fariisan waa iska celi anaga nafta noo keenay baashay iyo qeyrkii siciidii waxba nagu darsan lacagtii saa cunaya mushaha waa cashuurtii islaamaha iyo 15 cunaya halkaasuu ku yaro la yiraahdo xaamud iyo inoo wada hanjabiya ya dadkii miyir qaba ma hadla kuya qaadaya mushaharka ayaa maalin kasta caaf lagaado ku hadlay وان تهنيدين يعني داني wax kasta idugu wax ka maxay khilaafkaasi wuxuu gilgiliba leeyihiin wasaarihiyo maadaama xildhibaanadii kala jabnay iyaga laftigooda saameyn bay ku leeyihiin waarde waxa dadkaas halka jooga danoo u joogan danoo ilaashanayaan waxaan arkay ku yaro leeyahay markan waxa deemakoo ninka leeyahay marka hel waxa ku socda waxaan maqlay maalinta kale رئيس وزراء مقامات كحيانك تاجريش يسي موسى يسايستا تبل تاجريش رئيس وزراء هرجيسه كله هاي ده هكذا يعني هلا تاجريش وشيء يا حمر نقول له هاي نك رئيس وزراء يعني كده شقية فرماشو بالتاجريش وشيء يو وين الهور كان هلا كنت بهالشيء ها كان نكسر واحد دونه كهلا كي موسى عاريسنا واحد دونه كهذا ورده موسى ويسكتي وفود بوكي ويسكتي هذا دتك ربشده لقى داي ودك قرنك الى شرع والقرنك الى شرع دولد مامك هدي خلت ولا هجاجين ولا هجاج بالي لكن ان كدغتان دلكيبا دل ان فوضى oo kala dambeyn lahayn oo ninku doon wax ku hadlayo tan waayad bal imaka hela bahashu bixiyay saanay ilaa ma ku daayay madaxweynaha waxay soo yeerayso wasaarka xigeenka Soomaaliya isdaas ma wax nin weyn ku hadlaba maalmihii u dambeysay waxa jiray Soomaaliya ka dhex jiray aad oo leysnaa arinta baaq shacab dhalinyaradu waxay sheegeen dhaliilihii bay sheegeen dhaliil qof soo ma la sheego sidee kula muuqata baaq shacab dhaliilu way jiraan dhalama in dawladdu dhinac ka rarantay babeena inuu musuqmaasuq jiraan ba inaan wax way jiraan wixii jira waa la hada wala saxa ya laakiin lama yiraahdo meel kale laga warayo meel kale ma jiro waxa way keedo inay Soomaaliland ay sheegaan goonisaa inuu yahay muqaddas dadkana ay tahniidiyeen oo maalintii tahniidii ilaa sida guureed intaas sheegtay laakiin qofku uu xaq buu leeyahay inuu wixii uu arko inaanay hagaagsanin waa dumaradeen qaadin waa weey hada qama ma ka hadlayno wixii kasta ma nidaaho xamar bay ka socotaa inaga wax yeelina